tobankii sano ee la soo dhaafay waxaa laba laabmay dadka Soomaaliyeed ee ku dhaqan dalka dibadiisa hase yeeshee doorka lixaadka leh ee ay ku leeyihiin dib u dhiska iyo waliba dhaqaalaha wadanka Soomaaliya ayaa ah mid aad u weyn waxay si weyn uga muuqdaan siyaasadda dalka haddii aynu eegno golaha fulinta ee dawladda waxa si weyn ay uga soo dhex muuqdeen siyaasadda dalka oo waliba golaha fulinta ee dawladda in ka badan 50% ay yihiin golaha wasiirada xubno ka soo laabtay qurbaha dhinaca kalena jagooyinka ugu sareeya wadanka markaynu eegno ra'iisul wasaaruhu waxa uu ka soo laabtay wadanka Norway madaxweynaha naftirkiisu waxa uu muddo ku noolaa dalka Mareykanka haddaba maxay tahay sababta ay ku heleen saamiga sidan u xoogan qurba joogta waa arinta aynu uga doodayno barnaamijka caawa oo ay nagala qayb galayaan جمال محمد عثمان oo ah wariye madax banaan oo degan laakiin gobolkana ka shaqeeya London degan gobolkana ka shaqeeya iyo magaalada Muqdisho oo qadka uu uga jiro wasiir dawlaha xafiiska ra'iisul wasaaraha Cabdullaahi Xaamud marka waxaan jeclahay in aan su'aasha ugu horeyso ku bilaabo Cabdullaahi Xaamud inaan ku bilaabo maxaad leedahay wasiir maxay tahay saameynta inta la eg waxa ay ku heleen ومعصنتها habeen wanaagsan ama galab wanaagsan meesha joogtaan siyaasadda sideedaba waa horta waa shakhsi hami soo galay oo siyaasadda rabo inuu galo oo mana kala soconaa inuu qofka ay ku qasban tahay inuu wadanka joogo ama inuu dibadda ka jiro marka dadka soo noqday oo siyaasadda ka qayb galay Soomaaliyeed waa dad Soomaaliyeed oo hami u hayay inay wadankooda ku soo noqdaan ay contribution-kooda baxsadaan dad u haysta in deema lagu leeyahay oo maadaama ay wadankii waagi uu dawladda dhexe jirtay wax ku soo barteen lacag la'aan ay jeceliin inay deyntaas dadweynaha Soomaaliyeed dib ugu celiyaan marka aniga ilama aha inay kala soocan tahay siyaasadda ama qofkii inuu gudaha su'aasha marka isweydiinta waxa weeye wasiir waa run sidaad sheegtay laakiin wadanka ma u wanaagsan tahay in boqolkiiba 50 in ka badan ay noqdaan dad qurba jooga oo Britain marka xilka laga qaado dib ugu soo noqonaya wadamada ay ka yimaadeen والله أنا أساس ما أركو وحنوارك إني أدو في عنتها إن خوف أنتو وطن كمغنا حرفت عصب صوبرتي وحبرشة صوغلي cultures أو كلا دوان كوسو نغمي إنه وطن كيس إنتو دب كوسو نغضو وددال كوموجيو إنه وحرفت صوبرتي أموح صوبرتي إنه وطن كيس دبلو نغضو طبعا تقارنوا وينغونا عيان لكن أنت حدو قبضان قياس ما هايو لكن انت ugu badan oo siyaasadda Soomaaliya ka soo qayb gashay ama soo noqdaan parliamentarian ama wasiir soo noqdo badi way joogaan haday ka maqnaadaan waqti yar ay ka maqnaadaan laakiin dalka kama suugaan oo kama tagaano sida loo dhiga hadda waan garto ama santahay Cabdullaahi Xaamud ku soo noqonaya su'aal lamidan ku weydiinaya Jamaal ma isleedahay tiradan iyo saameynta inta leeg way u qalmaan أنا ما يبان وأركا سببتو dadkii u soo dhabar jabay u soo adkaystay Soomaaliya ee dhibka soo maray in la yeeso oo dad dibadda ka yimid ay jagooyinka muhiimka ah qaataan waxaan u arkaa khalad bal waxaan u arkaa qofku hadduu baasaboor shisheeye haysto in laga mamnuuco jagooyinka muhiimka ah ee Soomaaliya inuu qabtaan u arkaan sabab maxaad ku leedahay sababtoo ah markuu baasaboor kala haysto wuxuu daacad u yahay dad kale iyo dal kale marka boqolkiiba boqol Soomaalida daacad ama qarannimada Soomaaliya daacad uma noqon karo xaqiiqdu waa sidaas dastuurka Soomaaliya saas ma qoray laakiin marka waxa leedahay dastuurka hal bedelo waa loo ogol yahay qofku inuu laba dhalasho haysto wadamada in laba dhalasho inuu haysto lama diidana laakiin wadamada intooda badan markaad fiiriso lama ogola hadda baasaboor British qof haysta Soomaaliya ma matali karo safiir halkan kama noqon karo marka wadamada caalamka intooda badan qofku hadduu dhalasho kala haysto jagooyinka muhiimka waa laga qofku hadduu beec mushtar noqonayo oo dhib ma laha jaga muhiima markuu qabanayo waxaan aaminsanahay in laga mamnuuco jagooyinka muhiimka oo dhan qof baasaboor marka waxa leedahay hadduu qofku baasaboor shisheeye haysto xitaa hadduu xirfad wanaagsan leeyahay yaan loo dhiibin xil siyaabo kale oo waxa jira bulshada uu wax ugu soo kordhin karo laakiin dawlad markay tahay sira badan iyo qarannimadii uu gacanta ku hayaa waan gartay waan ku celiyo wasiirka Cabdullaahi Xaamud wasiir oo maqlaysa dooda Jamaal والله يعني هذا جمال اسمنا قال لكن كم مرة عسني حرفضها ذاك صوبرت قفك هدو مواد Soomaaliyeed دروفك كل إنه وطن كمرنا كتجي ما باسبور كلا سوق هات soo noqday wax sharciga u diidaya inuu wadankiisaas
siyaasadda ama dhaqaalaha horumarinta ama arrimaha bulshada uu ka qayb galo qof wax reebi kara hadda ma jiro dadkana kulli siyaasad kuma mashquulsanee waxaa jira tiro ka badan intaas ka badan oo arrimaha bulshada ku mashquulsan tiradaas ka badan oo ku mashquulsan ganacsi marka adiga ma kala reebi kartid ma dhihi kartid qofkaan jaga looma dhiibayo qofkaan uu furan yahay marka qof kastoo muwaadina wuxuu xaq u leeyahay oo Soomaali ah ama Soomaali ka soo jeeda inuu wadankiisa intuu ku soo noqdo oo contributionkiisa baxsado waan gartay wadamada dariska hadda Ethiopia iyo Kenya oo kale lama ogola wadamada caalamka intooda badan sabab baa jirtana loo diidayo marka anigu waxaan arkaa midda kale laakiin dhibka anaga nagu dhacay Soomaali haddaan nahay kuma dhicin wadamada aad sheegaysa ma barbar dhigi kartid Soomaaliya oo burburtay oo laga hadda markii prime minister kan cusub Ethiopia la doortay dad badan oo Soomaali waxa jira ku noqday oo gobolkan Soomaali galbeed rabay inay madax ka noqdaan baasaboor shay wateen waa loo diiday sabab baa jirta loogu diiday markaan waxaan aaminsanahay dantii dalkii uu baasaboorkooda watay iyo dantii Soomaalida iska hor imaanaya marka waxaan aaminsanahay inaan arrimaha uu ka hadlay wasiirka waxa kamid ah arrimaha bulshada oo kale inkastoo arrimahan bulshada iyo dhaqaalaha ay yihiin dad qayb libaax la kule iyo ganacsigaba laakiin haddana waxa leeyahay saasoo tahay noloshii Muqdisho qurba joogti baa ku qaaliyeysay oo qofkii maanta maqaayad gal waxa laga yaabaa in lacagta uu ku bixiyo qada ama cashay ka badan tahay maqaayad ladna waxaad ku bixin lahayd aniga ma jeeda su'aasha Jamaal wasiir adan ku weydiinaya waa maasan tahay waa taas horta waa dhacdo jirta taasna waxay ku xiran tahay siyaasadda dhaqaale ee wadanka guud ahaan ku xiran tahay hadda dawladda waxaan ku dhaqmayno waa dhaqaale oo economy oo dollar haysta anaga taas ma bedeli karno ilaa ay shilin Soomaaliga oo aan hadda dadaal ugu jirno sidii dib loogu soo celin lahaa oo maciishadii iyo shilinkii Soomaaliya la soo baalmarin lahaa maadaama hadda ay dollarkii wax lagu kala gadanayo waa siyaasad aan aad uga soo horjeedno aan dadaalkeedana hadda ku jirno inaan aan bedelno dollarka waan gartay wasiir haddaan dhaqaalaha dib haddaan ugu noqono siyaasadii saamigaas tirada badan oo golihii wasiirada baarlamaanka aad ku leedihiin xubnihii ugu sarreeyay yihiin kulli qurba joog ma ku soo kordhiyaan wadanka oo isbedel ma laga arkaa aqoontaas aad tiri wala yimaadeen iyo xirfadda shaki ka gelin inay wax ku soo kordhiyaan dadkii wadanka joogay oo sida walaalkay u sheegay u soo dhabaaleedayna wayna la joogaan waa la kala warqaataayo ayagana xigmadoodii iyo experience-gooda waa loo baahan yahay annagana dadkii kale oo hadda dibadda wax ku soo bartina waxay keenayaan waa loo jeedaayo way ka cadday hadda magaalada Muqdisho iyo Hargeysa iyo hadaad tagto iyo Garowe iyo Baydhabo waa ka dareemaysaa influence-ga iyo isbedelka ay ku soo kordhiyeen dadka walaalaha ee wadanka ku soo noqday wasiir waa maasada ku soo noqonay Jamaal baa gacanta taagay ma u qalmaan baa tiri ma tahay أنا وحنا مثلاً قرب الشوكة إن لك كلا صار قفك هدو تجو إسبيتال سمايستية بيزنس وجوني كوا بدنا وناك كانت شرا سياسة ده كوا جل أنت هذا بدنا وحن ليه لها كوا بدنا وانا قانا وكوا قربها كفش المي أو نرى حد يقول شيء دواء هل السؤال هاي سويدية قف والبا إمسا سياسي صومالي بعد تقانا قف والبا ندب أرادي محو شقاء هو ودن كانوا كهيي محو هرمرو كسميي محو برطي bal dib hal isu weydiyo qof walba hal raadiyo waxaan aaminsanahay intooda badan inay yihiin dad qorbaha ku fashilmay xagga nolol u raadsaday marka waxa leedahay uma qalmaan intooda badan kulligood ma dhahay intooda badan uma qalmaan inay jaga Soomaaliya ka qabtaan baan aaminsanahay intooda badan anigu kuwa badan baan aqaanaa waxaan garanayaa laba nin oo taksiila ahaa oo laysankii markii intay wax sadaba mariyaan laga qaatay Soomaaliya aaday oo madaxda ka halka markay shaqadii ka kala booday noloshii ka dhaceen bay xagga la aadeen marka waxaan aaminsanahay dadka localka ee deegaanka u dhabar adeegay wasiirka dhul cadeynaya inuu jawaab rabo wasiir maya horta qof shaqeynaya waa shaqo hadaad ama taksiilo tahay ama aad jaga sare ka gaartay oo sida maxkamadaha ama congress-ka sida hadda ay gabadhanada walaashanada ay gashay qofna laguma ceebeen karo lama dhigi karo qofka shaqo buu hayo shaqadii ku cuslaatay wadanku wax ka raadsaday kadib dadaal uu sameeyay iyo jago ku helay aniga ilama ah inay qofka in lagu takooro inay fiican tahay shaqo waa shaqo qofku waxa muhiim ah inuu dareenka uu la yimid wadankiisa u yahay ma wadankayga rabaa inaan badbaadiyo contribution baxsado hadduu qofka intaas u yimid kuma takoori kartid wax gartay laakiin dalka ma joogan Soomaaliya ninkii markii shaqadii ka dhamaato dib ugu soo noqdaan heerkiisa iyo caruurihiisa iyo Yurub joogay والله هذا أنا سيدان كوشة dad fara badan oo wasiiro ka soo ahaa
dowladihii hore weli xamar joogo iyo magaalooyin kale oo waaweyn oo Soomaaliya yaa ku arkaysaa aad joogo aan wadan ka tagin inay caruurtooda u tagaan waa suurooda laakiin dadka badidooda qiyaasaya inay wadankii aysan ka tagin wasiirku wuxuu yidhi inuu soo noqdaan ay wax qabtaan qofku dhimale inuu wadankiisa wax ka qabto laakiin qofku inuu u qalmo weeye booska uu qabanayo hadda anigu markaan wariye ahay haddaanan aqoonteedii lahayn shaqadii ma qaban karo qofku markuu jago qabanayo waa inuu aqoonteedii leeyahay qofka hadduun aqoon lahayn ma aha inuu jagada qabto intooda badanna waa dad ku fashilmay halkan oo xagga nolol u raadsaday aad iyo aad baad u mahadsan tahay Jamaal Maxamed Cusmaan iyo waliba wasiirka oo isna khadka uga jiray magaalada Muqdisho Xaamud aad baan kugu mahadcelinaynaa waqtiga aad nasiiseen barnaamijka caawa inta ayaan ku soo gabagabeynaynaa daawadayaal inta aanu mar kale dib u kulmayno habeen dambe dhamaantiinba waxaan idinkaga tagaynaa sidaasi iyo habeen wanaagsan Thank you.